halkan waa 5TV daawadayaal soo dhawaada goordhow waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo tagaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo soo dhaweyntiisa halkan ay ka socoto وهجاج ما نقول عطان وايد روح الجرارة هي مشكلة هي حتى كنا هاي عمل كان تقول إنه يا جرارة من الكلام جبلان محمد إسلام مدوبي اليوم مسلم بدل يوم كتير يا شركة نقول اليوم مالك البديع ومالك كده عم مجال المستقبل يعني ما هذول شيء كلام ده اللي ملاك الدولة المنال في دول كله هاي عاصمة كل يلانيان والزيارة ودي أحد مدور السلم دقيق لكن وحلا كله يا ضميران صوص لكن خلق كسر دقيق دونه أساقوا الحكومة رأي من أخوانها وأقول كلبان أبدا نفس الكلام وعاصمة السوق جاري ونال كان صدوين ومسميه حلا كله يا إن sidoo kale Axmed Madoobe iyo markii uu yimaado kadibna madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciidani caasimada soo gaaray
كان والله تقاقم كل شيء ويضع كل شيء سوي إنه يدور كل شيء سوي كل شيء كل شيء واي وحياة يتوقع أيام أي كل شيء واي كل شيء واي فما تقول ده دور شيء رفضه thank you barbaarta gaashaman ayaa soo dhaweynta qayb ka ah ay hal shirib 5 TV toos ugu jirtaa هذا كم كذا سنة؟ واي هاي و5 TV وهجاج waxaa halkaan ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda oo soo dhaweynta madooba qayb ka ah iyo sidoo kale wuxuu maanta magaalada soo gaaraysa shirka arrimaha doorashooyinka ee madaxda dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo qorshuhu ah maanta inuu furmo ayaa dib u dhacay iyadoo markaasi wararku ay sheegayaan in maalinta Sabtida ah shirka uu caasimadda ka furmi doono maanta ilaa iyo berina ay socon doonaan soo dhaweynta markaasi wuxuuda kala duwan loo sameynayo marka ay caasimadda yimaadaan kadibna waxaa is arki doonaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo shirar gaargaar yeelan doono oo marka ay uga hadli doonaan hordhaca shirka weyn ay isugu imaanayaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada shirka rasmiina waxa uu furmayaa maalinta Sabtida ah oo qorshuhu maanta ayuu ahaa oo labadii bishan ayuu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in 20ka bisha oo maanta ahayd oo furmo laakiin arrimo farsamo iyo awgeed ayaa dawladdu ay sheegtay inuu dib ugu dhacay maalinta Sabtida ahna uu furmi doono madaxweyne Axmed Madoobe waxaa ka horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo magaalada soo gaaray sidoo kale marka Axmed Madoobe oo yimaado kadib waxaa la rajeynayaa in Muqdisho uu yimaado madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Dani madaxweynaha sidoo kale Hirshabeelle ayaa isna arrimo farsamo awgeed la sheegay inuu dib ugu dhacay maadaama shalay jowhar ay qalalaaso ka dhaceen balse maalinta biri ah iyo saacadaha soo socda uu magaalada soo gaari doono saaxiibayaal waxaad nagala socotaan 5 TV dad aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe mas'uuliyiin ka tirsan dawladda qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaano ka tirsan Jubbaland xildhibaano federaalka ka tirsan ayay isugu jiraan oo dhammaanba soo dhaweynta wafdiga qayb ka ah diyaaradii waday Axmed Madoobe weli ma ayna soo caga dhigan laakiin daqiiqadaha soo socda ayaa la rajeynayaa in ay halkaan soo gaarto waa uu soo degay waa uu ka soo kicimay magaalada Kismaayo waxaan la rajeynayaa in goobta uu halkaan yimaado haye soo dhawaada waa 5 TV toos ugu jirtaa korofka qabso aye maanta garoonka maxaad u imaadeen maanta inaan soo dhaweyno madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Axmed Islaan ayaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno maadaama ay soo bilowdeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada shirkina aan rajaynayno inuu furmi doono waxyaa guulo ummaddu ay ku wada farxdaan ay ku soo bixi doonaan shirkan maxaa isla shirro kor ugu duwanaan doonaa wax goyn aslay waxa shirkan waa shirkii ugu dambeeyay oo lagu heshiin lahaa ummadda Soomaaliyeed gacmaha isku qabsan lahayd ee loogu dareeri lahaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo loo dhan yahay fariinta u dirayso marka madaxda Soomaaliyeed waxay tahay fariintan u dirayo anagu qoraxdaan u taaganahay diyaar aan u nahay waxaan rabnaa inay hore u socdaan inay gadaal u noqon waxyaalaha tabashadaana la iska iloobo loo daneeyo dadka iyo dalka aad u maasan tahay gabadhan kala u dhiib magacaaga ugu bilaaw maanta waxa halka u timaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim waa Aamin Xuseen Cali marka hore ilaahay baan u mahad celinayaa kulankan oo ku imaadeen
kan labaad waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha oo kulankan qabanqaabiyey ayaan u mahadcelinayaa iyo garabkiisa oo dadka dhan haddana ay garab taagan yihiin haddana waxaan ugu sii mahadcelinayaa ra'iisul wasaare geedka nabadda ayuu Soomaaliya ugu dhigay eelboorka waa geedkii oo ku harsanayo geedkan waa geedkii nabadda waxaan ka rajaynayaa dadka maamul goboleed in ay heshiiyaan ay sidii sababtiisa ay dhameeyaan sidii guulo horle oo loo gaaro sidii waddanka doorasho xor iyo xalaal uga dhacdo sidaan dib u dhac dambe aan noogu imaan sidaan shacabku mar dambe ugu bilaabin inuu farakac bilaabo waxaan ka rajaynayaa in guul iyo ay ku dhamaato madaxweynayaasha shanta maamul goboleed waan soo dhawaynayaa in ay ku dhameeyaan saxiix ay ku saxiixaan si xorriyad oo madax bannaan oo annagana aan wada codku aan ku nahay diyaar u nahay gaar ahaan haweenku waxay rabaan in laga qaybgeliyo wada hadalka oo meesha ka dhacayo hadday inta ay ka saxiixayaan xataa annaga waxaan rabnaa inaan taagnaano albaabkooda hortooda ilaa ay ka saxiixayaan annaga ma dhaqaaqayno waayo waddankan wuxuu rabaayo horumar waddankan dhallinyaraa u soo kacday waxaan rabaa in horumar lagu tiigsado waxaa la rabaa in waddankan aad ku jeedid in nafaqadiisa in la cuno waddankan khayraad fara badan oo macaan baa ku jiro khayraadkiisa in laga faa'iidaysto haddaan nahay haweenka waxaan dhalnay carruurta oo carruurta soo kacda هذا هو ما صنعه. Thank you. هذا هو ما صنعه. وأنا واحد علينا قار كميدا ضدك سودانيين تخيلت كاها أي أهايم أو 5 TV لها اللي جاي 5 Somali TV أي نقص عطان سنت Somali TV بربارة قاشامن قيابها كل دوبن يبلشدا مسؤولين كترسن قلياس الدولة يا سودانيين تخيل كاها أيه طلع الرسول هذا 5 TV kusoo dhawow TV-ga shanta Soomaaliyeed magacaaga noogu bilaw iyo maanta halka u timid shirka maxay ka rajeynayaan dhalinyarada waxaan ka rajeynaa insha Allah سائل المرمى إن شاء الله تعالى أصحاب وايه درين كودا هاي magacaaga igu bilaw maanta waxa halka u timaadeen إن شاء الله ونمشيكم وما زي هاي TV 5 TV وسلوينا وما زي مع تاجنا يا رب fariinta marka madaxda u direyso kala leerahan maxay tahay fariinta la qaabtay waxa way heshiis dadka doorto loo jideeyo inay geeyo meesha ku wanaagsan tan waxa kala qabanaysa siyaasad aan rajeynaya shirkada iyo shirkada dambe loo heshiiyo waana ma thank you aad ma santahay ayi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. هذا ما صنعه وهي هاي يا رب صوتك كلا كلمة أحمد وكيلة هاي كلام حقيقي كرنا
diyaaradii wafdiga Axmed Madoobe uu la socday madaxweynaha Jubbaland waa ay soo degtay garoonka Aadan Cabdi ayay soo cagdhigatay waa taa diyaaraddaas ayuu iminka daqiiqada kadib ka soo degi doonaa Somali TV ayaa toos nagala socotaan TV-ga shanta Soomaaliyeed ciidamo ka tirsan ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa iminka diyaaradda ka soo degaya kuwaasi oo xaqiijinta ammaanka wafdiga madaxweynaha qayb ka ah waa hagaag sidaas u jeedaanba ciidanka ammaanka ilaalinaya madaxweynaha Jubbaland Maxamed Islaam Madoobe waa ciidamo aad u fara badan ayaa nagala socotaa saaxiibayaal ciidamadan waa ciidanka ilaalinaya ammaanka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe hadda ayay diyaaradda ka soo degayaan waayahay ciidanka lama duubayo ayaa la yidhi oo kaabradii laga dhexyayo ciidanka saraakiisha booliska ugu amreen waana ka soo wareegtay wafdiga weli diyaaradda ayay ku jiraan hadda ayay soo degi doonaan waxaan lagala soo baxno kaamirooyinka ugu dambeeya بعد كبة حاجة أيوه وحاجة waxa uu markaan gacan qaadi doonaa dadka soo dhaweynta halkan ugu sameynaya oo runtii aad u fara badan madaxweyne Axmed Madoobe ayaa soo degay waxaana ka dambeyn doona oo la sugaya iyana in maanta ay magaalada soo gaaraan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Hirshabeelle ayaa qorshu ahaa isla inuu yimaado balse shaqaaqo shalay jowhar ka dhacda awgeed iyo tacsi markaasi la sheegay in dhibaato halkaasi ka dhacda awgeed uu madaxweynaha u baaqday balse uu imaan doono shirkii qorshuhu maanta uu ahaa inuu furmana maalinta sabtiga ah ayaa loo ballamay loo dhigo oo madaxda dowladda federaalka waqtigii xilfayntooda uu dhammaaday iyo madaxda dowlad goboleedyadu iyo gobolka Banaadir ay isku arki doonaan waa kuwa
xildhibaano ka tirsan golayaasha dowladda ayaa halkan ku sugan soo dhaweynta guddiga qaybka ah Somali TV guddigaashada Soomaaliyeed ayaa toos ugala socotaan oo idin soo tabinaya qaabka uu socdo diyaargarowga soo dhaweynta guddiga kala duwan ee imaanaysa saaka waxaan soo tabinay soo gareen haddana waa ويمانا iminka qaybta VIP-da garoonka aadan cadde ayuu u gudbi doonaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Oobe iyo wafdigiisa halkaa oo ay warbaahinta kula hadli doonaan isaga uu yimid hadda saakada waxaa soo gaaray magaalada Cabdicasiis Waqtigareen waxaa la filayaa madaxweyne Siciid Dani isna inuu goor u yimaado sidoo kale waxaa qorshuhu yahay in madaxweynaha Shabeelle isna uu yimaado inkastoo maanta uusan imaan karin sida mas-uuliyiinta dowladda ay noo sheegeen sababo la xiriira shaqaaqooyin ka dhacay صوصك ما صوصك كلام صوصك كلام صوصك قطع بلام علينا بلام علينا بلام هذا وهي هاي قد كاس أيوسف
قفكا واحد قبلين وركب بحث عداله ابو صبرا الساعه وكلام الصبح نو كلام كده بحث هذه كده هذا ما ابو صبرا صاحب VIP da garoonka ayuu warbaahinta kula hadli doonaa marka la gaaro shirka jaraa'id madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaan ku gudbin doonaa xubintii qaybta tooska ahayd ee banaanka intaas ayaan daawada ku soo koobanayaa ana nagala socoteen TV-ga Soomaaliyeed marka qaybta hadalka shirka jaraa'id ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa waa mahadsantihiin